عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتي شرفت علي مركلة يوم وقال وحيسة بلا هدي جنالك كعصب تهي بلي سبسكرايب وقالك إي لايك جري سين شير جري سي او دد بدن وقارو madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo iyo Cali Cabdi Wardheere gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir la soo warinayo in xaalad amni darro awgeed ay uga carareen magaalada Muqdisho kadib markii ay dhaceen falal lagu qaarijin rabay balse uu Alle ka badbaadiyey. Waxaan eegi doonaa xubnihii nabad iyo nolol ugu sarreeyey oo beegsi lagu bilaabay iyo warar sheegaya in guryihii xitaa ay ka degaanayeen magaalada Muqdisho ciidan la duldhigay kuwaas oo ka socda agaasimaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad. sababtu maxay tahay maxaase loo xadiday dhaqdhaqaaqa xisbiga nabad iyo nolol? waxaan dul istaagi doonaa Cali Cabdi Wardheere Cali Yaro ku dhawaaqay in markaasi cabsi awgeed guud ahaanba xisbigii nabad iyo nolol uu xiri doono xaruntiisa magaalada Muqdisho. sababtu maxay tahay muuqaalkan ayaan ku eegi doonaa. wararkeena kale waxaa ka mid noqon doona wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqiyo ku soo biiray dagaalka loogu jiro gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir iyadoo wararku ay sheegayaan inuu xilligan la safan yahay Abshir Bukaari iyo Saabir Shuuriye. waxaan eegi doonaa warar xasaasiyo sheegaya in wiil abti uu yahay Fiqi oo walaashiis ay dhashay loo wado booskaas iyadoo markaasi damir jadiid xilalkii ee dalka ugu sarreeyey ay ku safayaan carruurtooda. arrintaas miyaysan fashil kale ahayn, miyaysan foolxumo dowladeed lagu hogaamiye ahayn? maxaase uga dhigan dadka Soomaaliyeed indhaha ku haya dhaqankaasi ugubka ku ah qarannimada Soomaaliya? muuqaalkan ayaan ku qaada dhigi doonaa. wararkeena kale waxaa ka mid noqon doona Muuse Biixi Cabdi hogaamiyaha Somaliland oo xaaladdu ku xun tahay iyadoo wararku ay sheegayaan in xilligan qarka uu saaran yahay Biixi inuu inqilaabo Somaliland. waxaan eegi doonaa Muuse Biixi oo wararku ay sheegayaan inuu ku howlan yahay qorshe halis badan oo lagu burburinayo guud ahaanba maamulkaasi. maxaa u qorshaysan xildhibaanadii isagu gacan qaaday Hargeysa? muuqaalkan ayaan ku faahfaahi doonaa iyo guud ahaan wararkii ugu dambeeya banaanbaxyo xilligan ka soconaya gudaha dalkaasi ama gudaha maamulkaasi Somaliland. iyo waxaan eegi doonaa madaxweynaha Soomaaliya fariin argagax leh ka gudoomay boqor ka socda dal carbeed la wadaagay fariin weyn iyadoo wararku ay sheegayaan in kulan dacoodkii ka dhacay qaramada midoobay xaruntada New York boqorka dalka Urdun oo la wadaagay madaxweynaha Soomaaliya fariin kulul oo la wadaagay madaxweyne Xasan Sheekh ayaan muuqaalkan ku faahfaahi doonaa insha Allah. gargaaraya saaxiibayaal oo gaadsiiya meelo fogfog dadka Soomaaliyeed si ay u daawadaan xogaha iyo macluumaadka ka jira Soomaaliya ee aan ugu talagalnay inaan u baahino dadka Soomaaliyeed doonaya arrimaha markaasi Soomaaliya. waad mahadsantihiin saaxiibayaal. waxaynu ku bilaabaynaa warkeena sida markaasi wararku ay sheegayaan madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale xubnaha xisbiga nabad iyo nolol ugu waaweyn ayaa ka guuray magaalada Muqdisho waxayna soo wajahay cabsi weyn oo ay ka baqayaan in beegsi lagu bilaabo. waxaana sidoo kale guud ahaan la faaruujiyey gurigii ay ka deganayeen magaalada Muqdisho sida xogtu sheegayso. isku dayo toosa ayaa bilowday oo lagu qaarijin rabay xubnahaas oo Alle ka badbaadiyey sida iyagu ay sheegeen. qaar ka mid ah xubnihii nabad iyo nolol ugu sarreeyey ayaana beegsi xilligan lagu bilaabay sida wararku ay sheegayaan. guryihii ay Muqdisho ka deganayeen ayaana xitaa ciidan la duldhigay. arrintaas ayaana sababtay in qaarkood ay isaga guuraan magaalada caasimadda ee Muqdisho. xogta aynu helayno ayaa sheegaysa inay xilligan markaasi socdaan isku dayo xoogan oo waaweyn oo laga yaabo in markaasi arrintaas ay noqoto mid laga digtoonaado. xogaha suldaanka TV oo helayo ayaa sheegaya in markaasi ay xilligan Farmaajo Cali Yaro ay u guureen dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Turkiga oo xogtu sheegayso inay guryo kale ka kireysteen. cabsi weyn ayaana soo wajahda maalmihii lasoo dhaafayna isku dayo ayaa jiray. ciidan ka tirsan kuwa nabad sugidda Soomaaliya ayaana albaabada laga dejiyey sida xogtu sheegayso waxayna guud ahaanba diideen dadka gelaya guriga Farmaajo oo ka deganaa magaalada Muqdisho. waxay ku soo kordhawaan dib ayaan ka faahfaahin doonaa oo waan idiin soo gudbin doonaa. wararkan kale ayaan eegaynaa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Master Fiqi ayaa ku soo biiray dagaalka markaasi la isugu hayo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir. daljir iyo damir jadiid ayaana xilligan ku dagaalamaya cidda noqonaysa gudoomiyahaasi oo bedelaysa Cali Yaro. xogtu siday sheegayso xubnihii daljir ugu waaweynaa ayaa xilligan ku guulaystay go-aankii ay ku doonayeen inay gacanta ku soo dhigaan
balse waxaa isbedelo lagu sameeyey xubnihii maalmihii lasoo dhaafay hadalhayntu ay ka jirto ku saabsanaa in loo magacaabi doono xilkaasi. wasiir fiqi ayaa markaasi la saftay Saabir Shuuriye iyo Abshir Buqaari sida wararku sheegayaan, wuxuuna markaasi xilligan doonayaa Fiqi wiil uu abti u yahay oo walaashiis ka yar ay dhashay in laga dhigo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir. wiilkan sidoo kale waxaa adeer u Abshir Buqaari, waxaana abti u Fiqi, waxaana la doonayaa in xilkaas loo magacaabo oo booska caayare uu bedelo siday ku waramayaan wararna soo gaaray. Damul Jadiid ayaa xilligan ku howlan arrimo markaasi qaranimada Soomaaliya ugub ku ah iyo guud ahaan xilalka dowladda markaasi ay ka qabtaan mas-uuliyiinta shacabka Soomaaliyeed ee markaasi doonaya inay ka shaqeeyaan arrimaha dowladnimada Soomaaliya. maalmo ka hor waxaa la baahinayo baraha bulshada qabsaday wiil oo waanilada gabar uu sadda u yahay oo wiilka Xasan Sheekh uu qabo agaasimayaal loo magacaabay, xubno kale oo ay dhaleen ra-iisul wasaaraha iyo xubno xildhibaano ay dhaleen oo iyagana agaasimayaal lagu safay. waana arrin dhaqanka Damul Jadiid horey loogu yaqiinay. arrintaas ayaana wax laga yaqyaqsaday xilligan in caruurtii hogaamiyaasha dalku ay la wareegaan xilalkii hoose, xilalkii sarena waalidiinta ay hayaan. arrintaas ayaana markaas u baahan in wacyigelin looga sameeyo hogaanka dalkeena hooyo. gobolada waqooyi ee Somaliland haddii ay nooni Muuse Biixi Cabdi xaaladda ayaa ku xun, wuxuuna qarka u saaran yahay inuu guud ahaanba ka sano doorashada Somaliland oo inqilaab toos ah sameeyo siday ku andacoonayaan xisbiyada mucaaradka. xogtu siday sheegayso Muuse Biixi wuxuu markaasi qaati ka taagan yahay qorshayaal ay wadaan xisbiyada mucaaradka iyo xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Somaliland oo ku doodaya in Muuse Biixi uu dhiigyacad isku bedelay, suuragalna aysan noqon karin inuu sii hogaamiyo Somaliland. waxaa la isku haystaa doorashadii, waxaana xaaladdu ay gaarta meel xun. gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa loo hanjabay sida xogtu sheegayso. xisbiga Muuse xubno ka mid ayaana u hanjabay, waxayna ku doodayaan inaysan marnaba aqbali doonin qorshayaasha isdul saaran ee Muuse uu doonayo. dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan doceed kula yeeshay xarunta qaramada midoobay New York boqorka dalka Urdun boqor Cabdalla bin Xuseen. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa boqorkan uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya iyo isbedelada dhanka ammaanka, dhaqaalaha, horumarinta iyo dowladiisu markaasi ku howlan tahay, isagoo sheegay inay ka go-an tahay xasilinta dalka iyo dagaalka ka dhanka argagixisada. labada hogaamiye ayaa isla soo qaaday xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha, iyagoo markaasi u ballamay inay labada dowladood ay markaasi u xil saaraan diblomaasiyiin kasii shaqeeya qorshayaasha xiriirka iyo iskaashiga labada dhinac. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaasi mas-uuliyiin kala duwan kula kulmay New York kadib oo shirka uu ka qayb galay, waxaana Xasan Sheekh Maxamuud uu ka qayb galay furitaanka meertada 77aad ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay oo loogaga hadlayay yaraynta saboolnimada, xasilinta ama markaasi xasilooni darrada, horumarinta waxbarashada, shaqo abuurka dhalinyarada, xalfilitaanka musiibooyinka dabiiciga ah iyo xuquuqda dadka markaasi la haybsooco. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa soo bandhigay aragtida dowladda Soomaaliya ku aadan xasilinta iyo nabadda, dagaalkan ka dhanka argagixisada, wax ka qabashada abaaraha, gurmadka degdega ah iyo dhammaan caqabadaha ay markaasi la tacaalayaan shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan shucuubta gobolka. Xasan Sheekh wafdigiisa ayaa markaasi ka waday golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oro ku aadan aragtida iyo qorshaha dowladda Soomaaliya ee la xiriira la dagaalanka saboolnimada, argagixisada, kuwaas oo shacabka Soomaaliyeed ay kala soo kulmeen dhibaato xoogan ayaa lagu yiri warbixinta lagu daabacay bogga Villa Soomaaliya. saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan, waad mahadsantihiin qaybtaana. halkan ayaan kusoo gabagabaynayaa. nabadgelyo.